السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلهانتي ممل كستود كسوغانتين وعد كسو دواتان حبنتين سبورتس كاين نسو دياري انيغو عويز وزين اسمع هالكا نغلا سعوتو برتين يوتيوب كانو مقعدنا عويز برو هدي ادكو عصبتا waxaad naga codsiyaa inaad noo saarto subscribe sidoo kale dhiirigelinta aad noo taabato like taas yaan hore ugu sii socono fadlan waxaan naga codsiyaa inaad sii shargeyso fiidiyoyaasha aan soo tabino barteena youtube-ka Awees Pro haddii aan ku bilaabano wararkeena sportska horyaalkaas Ingiriiska kooxda Liverpool ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Burnley ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 1-1 sidoo kale kooxda Chelsea ayaa dhigta dhiig loo diray kadib markii 3-1 ay ku durdurisay dhigeeda kooxda Sheffield United ayaa ku guuleysatay sidoo kale kulan adag ayaa dhici doona kulankaasna wuxuu yahay kooxda Tottenham ayaa la kulmi doonta dhigeeda kooxda Arsenal kulankaas ayaa caawa indhaha lagu wada hayaa kooxda laga yaabay toddobaadkan kulankii saddexaad ee 5 badireysa kooxaha ku soo aada sidoo kale kooxdaas ayaa kooxda Manchester City ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Albion ciyaartaas ayaa 5-1 ay ku durdurisay kooxda Manchester City haddii aan u gudubno horyaalkaasi Talyaaniga kooxda Juve ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Atlanta ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 2-2 halka horyaalkaasi Spain haddii aan u gudubno kooxda Barcelona ayaa la kulantay dhigeeda kooxda Real Mallorca ciyaartaas ayaa ku soo ilaatay 1-1 halka ay guusha ku raacday Barcelona sidoo kale kooxda Real Madrid ayaa la kulmi doonta dhigeeda kooxda Granada haddii ay soo badiso kooxda Real Madrid waxay ka dhigan tahay in horyaalkaasi sida iyo nabadgelyo uu ku noqdo kooxda Real Madrid ay ku guuleysato waayo waxaana harsan 2 kulan oo kaliya way adag tahay in Real Madrid labadaas kulan ay laga badiyo haddii ay ku guuleysato inay badiso kooxda Real Madrid horyaalkaasi sida ayuuna ku hoyday Barcelona ayaa sanadan qiiqday horyaalkaasi Spain halka nagala socoteen barteena YouTube-kan ugu magacdarnay Awees Pro fadlan haddii aad ku cusub tahay waxaan leenahay subscribe inoo saar waana ku mahadsantiin daawashada daawateen waanigo Awees Xuseen Cusmaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.